nabigeena waxa ka soo sallallahu alayhi wasallam hadith sahiha dhowr alfaad kala gadisan ku yimid ma anzala Allah da'an illa anzala lahu dawa ilahi udur ma soo dajinin illa daawu soo daji alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila ninki ilahi u furo daawadiisa uu garan ninkan ilahi u furina garan maayo laakiin udur jira oo ilahi soo dajiyo keeno ma jiro illa daawu leey aadamaha baa laga yaabaa in aysan ku hanuunin cudurka daawadiis cudurrada ugu khatarsan ee hadda aadamaha laynaya ee adduunka ka jira ee leeyahay daawa loo leeyahay daawadoodu way jiraan laakiin waa sir ilaahay uu san wali u kashfinin aadamaha uu san u kashfinin waxaad arkaysaa cudurro waa hore dilaaha oo aadamaha baabi'in jiray oo waa hore aan daawa loo haynin mar dambe daawadeeda la iktishaaf marka waxay ku tusaysaa ibn aadamka iyo qusurka aqoontiisu inay iska kooban tahay laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala cudur oo keeno daawo lahayn ma jiro ama amraada nafsiga ha noqoto amraada jidka ku dhaca ha noqdo labaduba daawo leeyahay daawooyinkiisa marka waxa kamida xanuunka hadda aan ka hadlayno iyo mushkiladaasi waxyaalaha lagu daaweeyo waxa kamida oo nabigeena ka sugan sallallahu alayhi wasallam waana mid ugu muhiimsan waa al-iimaan al-amiiq la siyama الإيمان بالقضاء والقدر بحيث يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه إنه الروح ليه هي إيمان حيل دير إيمان قطر دير حديد كل شركي صفي عن قلبي جيس أوجله إيمان كمر كان لنا مبادئ إيمان كودن بس أوجله الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره إنه روح إلهي الرميه ملائكة الرميه رسوش الرميه كتبة الرميه إلهي سودة شيء ما أنت آخر الرميه إلهي قدر كيس خير يميز كيس شركة برميه إيمان صح إنه الروح الإيمان خاصة قضب كهذا وجودا بيو الإيمان بالقضاء والقدر إنه الروح الرميسية هي إلهي تبارك وتعالى qorshaha iyo qadarka uu koonkan waxyaalaha ka dhaco dhan horay u qadaray una qoondeeyay una qorsheeyay waa inuu rumaysan yahay bimaana Allah tabaaraka wa taala intuusan koonkan abuurin on samada la dhisin on dhulka la goglin on aadama la abuurin konton sano oo konton kun oo sano ka hor ayuu ilaahay tabaaraka wa taala kataba maqadir al khalaiq makhluuqaadkan maqadirtoodii wuu qoray علمي إلهي بيكوهر مرتي وقري الله تبارك وتعالى مركو الدوني يحلقو الدوني سو دوني ولا عيسى السجا أبورا يا ربي تبارك وتعالى سيداس درادد وحيالها دعية كونك كدعياي وهو حسي قرشي سناوه قسم بينكم الأرزاق كما كتب بينكم الآجال أجشوا قرنتهاي رزقنا واقيب سنيهاي وحيالها كوكو دعياي وهو هوري لو دجيوي saas daraadeed qalbigaaga markay ku jirto wax ilaahay kugu keenay marna kuma gafeen wax ku seegay oo duweydayna marna ma aadan hesheen halkaasi daawo weyn baa ku jirta laana ibn aadamku sidiisaba murugta iyo walbahaarka iyo cudurkan inta badan waxa keena ama wuxuu filayay buu waayay ama wuxuu san filaynin baa ku dhacay labada mid waa wuxuu sugahayay oo aad ugu weynaa buu waayay ama ma ahe wax uu lama filaan oo san ku tala gashanayn oo uu san filaynin baa ku habsaday labada mid waa labadoodaba markuu rumaysan yahay inay qornaayeen culays badan ku qaban mayso saas daraadeed iyo culimada qaar kood wax yiraahdaan mabda'aas oo ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa inuu ruuxu rumeeyo حتى فإذا كان هدايس الله أجر آخر إسكدا أبال جود آخر إسكدا أنت كلية أدونك وروح أقبلنا أنت هدي أبالك سنقول لها وقف الله أنت أبال وقف الله لأن روحي قلبي جاودجين وادجين حالتك صلوها يستا وادجين معناها القرآن الكريم كإله كتب الله تبارك وتعالى في سورة الحديد ربي وحده تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير حيث حكمته لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وحكست أرولك كردعية انتو صندحين بالسي قري ما حالو يلي وليدين كل شيء
likay laa taasaw calaa maa faatakum wax idin seegay ood weydeen inaydaan u murgin wax aad hesheenna inaydaan ku kibrin bimacnaa wax haddaad ogtahay inuu qoran yahay haddii lagu siiyana kibir ma keeno hadduu ku seegood weydana jazac iyo hami iyo isdil iyo rafaad ma keeno mabda'a ruuxu markuu rumaysan yahay mar walba qalbigiisu waa degan yahay likay laa ta'saw calaa maa faatakum walaa tafraxuu bima aataakum laba cudurba waa ka fayow yahay cudur nicmadii ilaahay inuu ku kibro isla weynaado isqaadqaado waa ka fayoobaanaya cudur in musiibadii ku dhacday intuu xamili waayo quusad iyo hami iyo asa iyo ay ku keentana waa ka fayow yahay noloshiisu marka waa nolol muctadila macnahaas aayadda qur-aanka tilmaamaysa waa macnaha meel kale laga cabiray ilaahay baa qalbigiisa hanuuninaya maa asaaba min musiibatin ila biidni illah waman yu'min billahi yahdi qalbah ilaahay qalbigiisu hanuunina ruuxii allah rumeeya oo mabda'aas khaasatan rumeeya ilaahay baa qalbigiisa hanuuninaya oo markii waxani ku dhacaan ama wuxuusa filaynin ay ku timaado ama wuxuu rabay uu waayo qalbigiisa waa la hanuuninaya waa la dejinaya macnaha marka arrintu qodobkaasi waa cilaajka ugu weyn oo daawada u ah ama lagaga hortegi karo saas daraaddeed cudurka hamiga iyo isla hadalka iyo muxuu ahaye stressku wuxuu aad ugu badan yahay dadka aan iimaanka lahayn gaalada ugu badan yahay weliba wuxuu si gooniya aad ugu sii badan yahay wadamada la yidhaahdo inkamka ama dakhliga shakhsiga ah adduunka iyagaa ugu fiican ugu nolol fiican iyo haddana cudurradaasi ku badan yahay isdilka iyagu ku badan yahay inuu ruuxu isdilo isqaarijiyo sababtu waxa weeyaan mabda'an iimaankan qadaa iyo qadarka abaa ka maqan aliimaan bilqadaa waalqadar baynamaa aad arkayso dhulka muslimiinta ayaa masaa'ibta ugu badan adduunka ka dhaca dadka dhiban dadka gaajaysan dadka rafaadsan dadka muxuu curyaamada ah dadka waxba haysanin haddana maca dalika inta badan cudurradaasi kuma badna waa ka fayowyi sababtu maxay tahay waxa weeyaan waa mabda'a musbaqanba wuxuu sii rumaysan yahay miskiinkani in wixii ku yimaada ilaahay baa keenay war ilaahay baa keenay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun allahuma ajirnii fi musiibati wakhluf lii khayran minha marna ima gafteen ilaahay baa ii keenay halkaasuba kaga gudbayaaba baynamaa hadday gaalkii ku dhacdo iimaankii difaaci lahaa ama uu kaga gudbi lahaa malaha iyadaasuu dul istaagaya waa ka fikiraya kadibna waxay keenaysaa akhiiran marka dambe inay musaa'ibtaasi ku dhacdo ruuxa muuminka markay musiiba ku dhacdana wuxuu kaga gudbayaa sabir bal waxaa laga yaabaa inuu sabirka ka sii fiicnaado martaba la yidhaahdo alridaa martaba kalaa ka sii fiican oo la yidhaahdo martabatu shukr musiibada saddexdaas waa saddex martabo oo dadka kolba say u kala iimaan fiican yihiin bay la tacaamulka masaa'ibtana ugu kala fiican yihiin martabada ugu xun ee la doonayo ruuxa muuminka inuu kula tacaamulo waa inuu sabro sabirka maxaa la yidhahdaa waa in asaga oo dhibsanaya haba dhibsado oo culays bay ku haysaa laakiin waa inuu dul qaato isceliyo oo uu iska celiyo wax khalada inuu ku dhaco afkiisa inuu ka soo baxo wax khalad ah ama adinkiisa iyo xubnihiisu inay ku tilaabsadaan wax khalad ah oo iscelinaya marka xabsu nafsi waa iscelinaya isagoo dhibsanaya waa martabatu sabir martabadaasi marka waxa weeye waa adna almaraatib oo ruuxa muuminka laga rabo martabada xigtay waxa weeye musiibadii ku dhacday waaba raalli buu ku yahay oo xanuunkii qalbiga maba qababa waa martabad ka sii fiican waaba ku qanacsan yahay martabada ka sii fiican waxa weeyaan musiibadii kugu dhacday iyo culayskii dhibka ku haysta inaad kaba shukridaba waa martabatu shukri alxamdulilah buu leeyahay caruur ma haysto war ma dhalays baa ta alxamdulilah war faqiir baa ta xoolo ma hayo alxamdulilah war caruurtii baa baabaadoo dhimatay alxamdulilah khalaas waaba alxamdulilah warkiisu waaba shukriba oo ma dhici kartaa musiibo inaad ka shukrida see ku imaan karta waa markaad martabadeeda gaadho iyadoo musiiba baad haddana shukrinaysa kaana nicmo oo kalaad ula dhaqmaysa kaana nicmo lagu siiy ila nicma laga shukriyaa sooma si nicmo oo kalaad ula dhaqmaysa laanna dhowr dhinacba markaad ka fiiriso alxamdulilah baad dhihi masaa'ibta kugu dhacaysa dhinac markaad ka fiiriso oo ah musiibadan ku haysata horta dembi aad gashay bay ku timid dembi aad gashay bay horta ku timid ilahay kuma dulminin soo ma ayib mid isweydii marka dembigan lagugu cuquubeeyey ee cuquubadiisa lagaaga dhigay in caafimaadkaagii la galo cudur kugu dhaco ama cuquubadiisii laga dhigay in carruurta lagaa baabi'iyo
ama cuquubadiisii laga dhigay in gaajo lagugu salido ka waran haddii aakhare lagugu dibdhigi lahaa cuquubada iyada oo inta adduunka caafimaad lagu siiyo oo lagu dibdhigo aakharo cadaabka lagugu geyn lahaa ka waran keeron waxoogaa adduunka in lagu yaro ma joojiyaa roon oo aakhare lagaa cafiyo mise adduunka inta lagu bulaaliyo in aakhare lagula sugo cadaabka lagu geeyaa roon war keeron alaa waxa roon hala iisoo hormariyo sooma kollayba haddaan laiga saamaxaynin hala iisoo hormariyo halkaa markaad dhankaa ka fiiriso waxaad leedahay ilaahaygii aan aakhare iigu dibdhigin ee adduunka iisoo hormariyo alxamdu lilah so alxamdulilah ma waa alxamdulilah dhinac kale markaad ka fiiriso masaa'ibtan ku haysata tu dad kala haysata markaad garab dhigto adiga waxay taadu noqonaysaa laciif saqiir bay noqonaysaa adiga haddaad waxoogaa caafimaadka ka sheeganayso laakiin aad ladan tahay caruur baad haysataa reeraad haysataa cuntaad haysataa waad ladan tahay xoogaa un muxuu ahay sankarow baa kugu yara dhacay dhiikar baa ku yara haya waad rafaadsan tahay laakiin mid ma ogsoon tahay mid baa caafimaadna aan haynin caruurna aan haynin muxuu ahay hoyna aan haynin lixdiisii lixaadna aan haynin soo ma kaas markaad fiiriso dhibkaaga garab dhigto maxaad dhihi marka alxamdulilah ilaahaygii aan saasoo kale iga dhigin waa alxamdulilah wallahi taydu waaba qarsaba waaba farta kula cararba taydu soo ma alxamdulilah sidaas daraaddeed masaa'ibtu dadka caarifiinta fahmaya agtooda ruux markuu iimaankiisu sarreeyo wuxuu noqonayaa shaakir buu noqonaya marka waa maa bayna saabirin wa raadin wa shaakir qodobka haddaan intaa kaga gudbo intaana ka gudbin waxaan doonayaa inaan tilmaamo saas daraaddeed baa nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu inaga reebay markay dhibaatooyinku inagu dhacaan inaan dhibaatada ka sii fikirno oo aan isticmaalno low alalahi saa haddaan yeeli lahaa saa ma noqotay war haddii la taxadari lahaa war ninkan markuu baabuur ku dhacay waa laga dahay haddii markaba ambalaas lagula ordi lahaa ma dhinteen war ninkan cudurka waa lagu halmaamay haddaan isbitaalka geyn lahayd wallahi waxba lowdaa joojiya buu nabi sal lla alay slam lowdaa leanna dhib waxaan hayn keeni mayso xadiidka fi saxiixi muslim ayaa nabigu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka wuxuu xadiid ka bilinaya muxuu ahaayey alyad alculya khayru min alyad asufla lakin waxaan ka soo qaadanaynaa wain asaabaka shayun falaa taqul low anii facaltu kada kana kada wakada haddii wax ku asiibaan ha dhihin haddaan saa yeeli lahaa saas iyo saasay noqon lahay walakin qul qadara allahu wama shaaa facal faina low taftaxu camal shaytan ilaahay baa qadaray allana wuxuu doonuu sameeyaa low ha dhihina iska daaya lowda haddaan saa yeeli lahaa saa ma noqota haddii saa la yeeli lahaa hadday saan la yeelina saa noqon lahayd iska daaya bu nabi sal lla alay slam leesh leanna irid shaytaan baa idinku furaysaa maxaa laga hadlayaa haddaad isa sii weydiisood waxaad sii dabagashood maskaxdaada ku mashquuliso waxna kaba qaban kartid jiraadna ka qaadi adugu wax dhacay miyaad wax ka bedeli kartaa haddaad maanta dhan ka fikirtood u soo jeedo waxbaad ka bedeli kartaa waxba kama bedeli karta keliyata waad ku jiran aakhiradaadiina dhib baad u geysano yani wax wey ilaahay qadihiisii iyo qadarkiisii ood ku qanci weyday adduunkaagiina waad isdhibi sidaas daraaddeed kaga gudba intaa kaga gudba macnahaasuu rabbi tilmaamaya tabaarak iyuu nabigu tilmaamaya salawatu rabbi waslamu caleyh marka arrinka masaa'ibta bay kaa fududaynaysaa kullamaa iimaankaagu sarreeyo masaa'ibtu waa kaa fududaanaysa ducadii nabigeenna waxay salawatu rabbi wasalaamu caleyh wa min alyaqiini ma tuhawinu bihi calayna masaa'ib addunya ilaahu yaqiintu waa iimaanka qaybihiisa u sarreeyo yaqiinta waxaad naga siisaa wax masaa'ibta adduunyada aad nagaga fududayso kullamaa yaqiintaadi iyo iimaankaagu sarreeyo masaa'ibta waa fududaanaysa culaysku waa kaa fududaanaya dareen badan culays badan inaysan kuu keenin ayaa dhici karaysa waxaa ka mid a oo qodobka labaadi u yahay oo daawada u noqon kara ama ka hortag u noqon kara cudurka noocaas alitisaalu alwathiiq billahi tabaaraka wa tacaala inuu addoonku ilaahay la leeyahay xidhiidh adag rabbigaa iyo adiga xidhiidhka idinka dhexeeya inuu adag yahay oo muxuu yahay xidhiidhka adiga rabbi kaa dhexeeya waa taacada acmaasha saalixa ah khayraadka haddii xidhiidhkaasi dabco oo xidhiidhka rabbigaa aada la leedahay uu jilco waxaa dhacaysa waxaad waayeysaa xirsi xidhkii allaad waayeysaa kadibna adiga naftaada iyo shaytaan baa laysu kiindaynaya leanna inta aan ku jirno waa ilaalada rabbi wey adduunkan waxaa inala jooga nafteenna oo shar badan oo gudaheenna ku jirta ina annafsa la ammaaratun bisuu iyo shaytaan iyo jiman iyo makhluuqaad shar badan baa inala degan dhulka waxaan kaga xirsi xidhannahay oon
inaga ilaalinaya waa xidhiirka rabbi tabaaraka wa tacaala kullama adoonku marka xidhiirkaasi uu yareeyo ama uu gooyo ilaahay tabaaraka wa tacaala ilaalintiisii buu waayaya kadibna waxaa lagu salidayaa naftiisa shaytaan iyo jin iyo balaaya lagu salidaya saas daraaddeed xidhiirkaaga aad rabbigaa la leedahay adke oo taacadiisa waajibaadka gudashadooda xaaraanta ka fogaanteeda taacaadkii khayrkoo la badsado ayadana waxay ka mid tahay alitisaalu alwathiiq والتفرق لعبادة الله تبارك وأداء الواجبات وترك المحرمات نبينا صلى الله عليه وسلم حديث القدس ربي وكورني أي وحي ليه ربي تبارك وتعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل أملأ صدرك شغلا ولم أسد فقرك ابن آدم أبو ربي الله تبارك وتعالى عبادتي ذي أفارق cibaadadayda faaruq daacadayda qabo waxaan jecelahay samee hada sayeesh qalbigaaga iyo laabtaada waxaan ka buuxinayaa qaninimo qanacsanaan deganaansho xasilooni dareen raaxo leh ayaan qalbiga kaaga buuxinaya baahidaadana anaa daboolaya haddaad yeeli weydo Soomaa ood xariga goyso ood cibaadadayda u faaruqi weydo rabbi wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala qalbigaagana shuqul baan ka buuxinaya baahi aan dhamaanayn iyo humuum iyo murug aan dhamaanayn iyo balaayo inay soo tartamoyo aan isdhimid lahayn ayaa qalbiga lagaaga buuxinaya gaajo iyo oon iyo rafaad iyo deganaansho la'aan iyo xasilooni la'aan ayaa qalbiga lagaaga buuxinaya baahidaadana dabooli maayo buu rabbi tabaaraka wa tacaala sidaas daraaddeed cibaadadu waa xisni cibaadadu waa dhufays ruuxu ku jira oo uu kaga jiro meel fogba intaan la aadin ba cadawga kuugu dhow oo naftaada ah waa xisni iyo dhufaysaad kaga jirta waa dhufayska markaad ka baxdo malay biyihiisa ka dhaxbaxay baata inaad bakhtido iyo inaad rafaado hada wax weeye marka curdaad u tahay macnaha waxa kale oo tilmaamaya xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wasallam kaana idha hazabahu amrun badara ila salat nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu culays ku yimaado salaadu u degdegi jiray waxa ku tusaya xadiiska fi sahihayn ku yimid min xadiis abi hurayra والنبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد روح مركو هبينكي سيحضو الشيطانك قداتك هلكا قداتك وحكا قنتيا أفر قنت سدح قنتموت وقداتك كاقا قنتيا ميت كستو سدح قنتموت كم إذا وحو كله فريا كشا بدينيا habeen dheer baad yaa ku dul saaran iska seexo war habeenkii wali way waqtigu waa laabaya jif seexo yuu kulay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam fa in istayqada fadhakara allah an halal uqda hadu hurdadii ka soo kaco oo markuu hurdada ka soo kaco ilaahay xuso dhikrigi hurdada markaad ka soo boodo xus baa jira ilaahay la xus sooma dhikrigi markaba il arabku ilaahay xusay tabaaraka wa taala markaba saddexdii guntimood mid baa furmaysa طيب فإن توضأ إن حلت عقدة مركو سوكعو ويسيستو قنتينتي لباد با كفرميس فإن صلى إن حلت عقدة مركو تكدو قنتينتي صدحات با فرميس طيب فأصبح نشيطا طيب النفس مركا سواقو وحو بريا أساقو فرعوني إيا النشاط لي نفتي سنة أي دقنتو حسيلون تهاي وفرحسن تهاي أيو واقو بريا وحو قابل يا واعصب وحو قابل يا نولو العصب wuxuu ku soo kacaya farax wuxuu noloshii ku galaya nashaad iyo firfircooni buu ku galaya laana culayskii oo dhan baa laga furfuray seetadii iyo dabarkii iyo guntimii haystay oo dhan baa ka furmay